السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتنا كحيران ظهير نيوز. waxaa su-aal qurux badan inala soo wadaagtay walaasheen gabar Soomaaliyeed lagu magacaabana Xafsan Maxamuud. waxay tiri walaal waxaan qabaa su-aasheedana waxay u dhacaysaa sida tan: waxaan ahay gabar 31 jir ah, ninkayga muddo ayaan isqabnaa oo gaaraysa 4 sano. waxaan ku arkay sanadahan dambe inuusan ka helin raaxadayda sariirta, aniga keliya ayaa dalbanayo haddii aan aamuso ima soo raadsado. wax kasta waan sameeyey, si kasta waan isu qurxiyey, waxaan uga shakiyey naag kale inuu wado, laakiin markaan baaray taasi ma jirto. wuxuu igu dhahaa jacaylka galmo keliya ma aha, wax kaste i weydii waan ku siinayaa, laakiin aniga kama helo galmada badan. marka waxaan rabaa su-aashaydan in la iiga jawaabo, la isiiyana jawaab faahfaahsan. haddaba walaashaydii muslimadda aheeday, jawaabta kugu habboon oo aan ku siinayo waxay tahay sida tan: dadka way kala duwan yihiin. dareenka galmada rag waxaa jira sida aad sheegtay ah, iyo rag dareen badan oo u baahan habeen kasta. taas waxyaalo badan ayay u noqon kartaa. adiga ninkaaga hadduu meelo kale ku fiican yahay, isku day inaad si wanaagsan ola hadasho oo aad ka dalbato wixii aad u baahan tahay. baahidaada u sheeg, xishood idinma dhex yaalo. waxaa laga yaabaa in ay hayaan wax nafsi ah. warayso waxa uu u diidayo raaxada, warayso oo waqti la qaado waxa uu u diidayo raaxada sariirta. la saaxiib ka dhigo ninkaaga. weligaa ha ku fikirin inaad nin kale raadiso, waayo sinada marka aad gasho khasaare adduun iyo aakhiro ayaad lagu halagalaysaa. marka waxaa kaloo aad samayn kartaa ninkaaga in aad u sheegto inuu ku dadaalo malabka iyo saliid saytuunka iyo looska iyo weliba afakaadhada iyo kalluunka, cuntooyinka ragga kiciya. ugu roonow, niyadda u dhis, isfahma, ilaahay u bari inuu kuu soo hagaago. wax kaste haddii alla idmo waa uu kuu toosi doonaa insha allah. walaal, taladaas ayaan ku siinayaa. iskuna day in aad fikirkaaga iyo ra'yigaaga aad kaashato, ilaahayna ha kula garab galo.